baraankii baad damacday inaad samaysid aan hoosaada ahayn aad hore u samayn jirin saa waxaa kugu dhacday adoo leh heblaayo bannaankay taagan tahay in kaamirada laga dhex arko haddaadan waxba macnaa lahayn kor iyo hoos 1 milyan baad haysan kartaa stiilna naagtii way kuu gambinaysaa why imagine adiga hadday garoob kuu gambiso noloshaada sa dareemay hadda aniga dhiiqooyinkayga ceebteeda raadinaysaa sanad ka hor gabar aan kala tagnay aad hadda ugu faraxsan tahay sidii inay ceeb tahay oo kale assalaamu calaykum galab wanaagsan maalin wanaagsan duhur wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin isu soo naqa dambe xiisa leh waa anigoo ah walaalkiin maxamed buskut halka toos noogala socotaan waa channelkeena maxamed buskut official haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markuu horeysan soo booqatay waxaan si xushmad kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid gabrielka furo rukuma channelka si aad u noqotid qof u horeyna daawado asxaabta hore hadaa ka mid tahayna waa ku maasantaa lasi joogtaankaaga wax fikradaada commenting noogu reeb inta waa free aad iyo aad u maasantiin kuna soo dhawaada channelkeena maalin kale oo qurux badan maalin kale oo cusub adoo caafimaad qaba dad noo soo laabatay anagoo caafimaad qabnana alxamdulilah dheh wax walba caafimaadka ka muhiimsan haddaa xanuunsan tahay inta xanuunsan allah caafiyo inta dhimatayna allah u naxariisto wiil waxaan arkayay tiktok ku jiro oo dadkii hore ah qaxweysta la dhihi jiray oo dhintay dadka qaar ay leeyihiin qaarkoodna weli tacbaan waa leeyahay maskaxda dhiig ugu furantay oo dadka tiktok waxyaabaha dhaqan xumada marka hore lagu kusoo caanbaxay ah muuqaalan kasoo samayn doona insha allahu dadkana waa ugu degi doonaa haddaad waqti haysataay social media si qaldan ha u isticmaalin okay muuqaalka xiga la soco waxaan rabaa marka inaan wax yar ka dhaho another classic fight ma laha isbaag labada youtuber ugu caansan ugu saameynta badan soomaalida oo ah Dirisle Cabdi iyo CK ood ogeydeen 3 sano ku dhawaad inay ishaysteen nig dagaal ku jireen oo ayaan dhaweed heshiiyey oo dad wanaagsan oo walaala noqday oo la soo wada dhibay oo kulmeen muuqaal ay wada duubeen oo muddana ay wada sheekaysanayeen oo TikTok live isla soo galayeen buucbuucbu haddana dagaal kala ka dhex qarxay ayaan dhaweed shuuxda waa badneed xoogaa dhaga hadal iyo labada dhinac midba dhinac wax ka tuura soo TikTok live ku jiro iyo xoogaa waa socotay ama video reaction laga bixiyo laakiin hadda waa isu soo fadhiisteeno dagaalkii waxaa bilowday 2018 iyo 17 ka socday YouTube-ka labadan waxaan dhihi karaa hadda isla shalay muuqaal isku soo duubeen Dirisle Cabdi ku soo hormaray CK ayaana u soo jawaabay bal Dirisle dagaalkooda intii qarsaneed iyo follow la kala laabtay inta waay aniga this guy waxa ii maqaal ahayd in hal mar aan follow uu dhahay markii 1 milyan ee wax yar iga dhinay xaq iidi inta shalay dhex martay ayaan hal iyo laba ka soo qaadayna cid qaldana la soo comment-ka kala soo ama qaybta dan video Dirisle ku hormarayna meeshu ka bilowday dagaalka reachin kara 1 milyan waxa ma tarayso 1 milyan adoo haysta xataa waxa waaye naagtii waa ku gambinaysaa waxa ma tarayso Dirisle ayaa wuxuu soo qaatay adi fiidiyoyo badan oo TikTok waa taqaaniin TikTok waxyaabaha ka dhaco reaction waa laga bixiyaa waa laga falceliyaa hees cusub hadii la soo duubo hadii wax boodbooda hadii wax funny la keeno waxaan waa social media inta la soo qaatay YouTube-ka looga falceliyaa okay Dirisle ayaa asagoo muuqaalo badan ka falcelinaya wuxuu soo qaatay muuqaalka CK iyo Manaal xaaskiisa hore oo uu ka falcelinayay midka ay dhaan xaliima dhii kara aniga halaaga laha kaasi ximiya dumarka la xifaaltamo dumarka wax la siinay wax laga hadlo ma dhaman kaasi doqonka asagoo dhaay 1 milyan ay gaartay 1 milyan haysta xaaskiina waa cisho weys oo ku karbaashay CK Dirisle intaas uu ku qoslay asagana yaani waa u socotaa amal warkaaga waa saxan yahay waa taqaanaa qof ay ishaysatiin Soomaaliya hadii wax la arko waa iska soo qof ay ishaysateen qof kale haysada aragtidna kiya la soo safaray balance daawano uu ku qoslay raxaliye laba video ka taawada xaliyo lisilooda video ala si sax loo sameeyay ama si sax loo yiri waa video okay horta Dirisle ay muuqaalka soo duubay
saas ugu qoslayo xaliye wax lala hadla ma dhamay laakiin dirisle macnaha waa ku raacsanahay buu yiri muuqaalkaas oo xaliye ugu hadlay CK ugu karbaashay le milyan haysta subscribe waa ognahay CK milyan ayuu haystaa ka badan hada YouTube-ka ayaan dawlad u dabaaldegayay dirislan kulli waa u xiran yahay inuu milyan gaari in kale ma ogi qofki waxaan arag intuu soo taabsiyaa la mugto laakiin hadda subscribe la qarsadaa ma jirta YouTube-ki yaaba ceeb keenay bishan hadda aan ku jirno 29keeda no subscribe la qarsan karaa ma jirta liiri kulli waa la iswada arkaa hadda la ceebo marka nin walba intuu haysto ani 200 iyo xoogaagii waa ii xiran mugta laakiin markaas banaanka la soo dhigayaa qof walba dirisa du milyan gaari aduusan gaari markaas la ogaanaa 29 bishan ma la qarin kara subscribe marka qofka du milyan gaaro xaaskii kala tagaal macnaheedu ma milyan in xaas lagu haysan karo laguna furi karo weligeeda la isguursan jiray weligeeda la kala tagi jiray in meesha la keenaba qalad ahayd in la keeno gabar la kala tagay oo la isfuray ama ayaaba qalad xalli inuu keeno xalli waa xoolo dirislan inuu soo qaato waa qaldanay taas runta rabbi aan ugu jecel labadoo ay sameeyeen فيديو فيديو كل ليه محل دبالدقنا maalinta calanka mana dabaaldegina muxuu yahay dadkeeni way gaajoonayaan dhibaatooyin baa ka jira wadamada dabaaldegiisina muxuu ahaa fiidiyowga babara anu raacay ninkan maraa wuxuu leeyahay aan sidii wax aqli kale labadaas video baan ku taageeray buu yiri xalliye macnaheedu waxay tahay xalliye hadda ku taageertay CK u waday oo uu leeyahay milyan buu gaaray muxuu xaaska u xajisan waay diris adigana waxaad ku taageersanayo CK milyan uu gaaray xabad wuxuu u haysan waay waadna ku qaldanay taas aniga fikrad ahaan in ninka da is haysiin waxa doonta dheh u soo fadhiiso soo karbaash laakiin milyan uu haystay shibhaay ka mid tahay qosolka helo gala mugta in la soo geliyo video da reaction ka bixinaysiin ninka is haysatiin mid asaga kaligiisa ina karbaashtay درس الانتاس اوكي ويقول قلدان تاي بل سيكي اسغنا حتى عليها دي لو في كان دقيقه بدل ما جرت gadaal loo celi waxa sameey jirtay dadka in aad ku digato waliba ayoon dhiiqa gelin on faar gelin ee aad waxa dhigi jirtay Soomaalida baraankiga ee sameeyaan waa been waa xaqiiqataas aniga buu dhahay asaga buu dhahay dirs loo dhigi jiray barankiyada Soomaalida oo dhan waa been waxa loo daawadaa short film ahaan horta waa mid oo barankiyada waa isla ogyahay laakiin dirisli shalay dhahay baranki waa been oo Soomaali anna sameey ma hadan hawl kala ma qabto labadooda ay sameeyeen okay yaata ku dhigi jirtay adna xiniga barankigooda ku dhigi jirtay waxa dhigi jirtay Soomaalida barankigooda u fiirso sida riwaayad oo kale waliba ayaga oo barankiga aan ku fashilmaya u saxan yahay today maxaa ku haystaa أنا بنهبا برانكي هذا بإذن الله برانكي الصومالي هو بين وحي أطهي والسلوكية معنا أوكي تاسوا صح درس لو كسعية today maxaa ku haysta baraankii baad damacday sameeysid ama hawshaada ahayn aad hore u sameyn jirin saa waxa kugu dhacday adoo leh heblaaye banaanka taagan tahay in kaamirada laga dhaxarko no jabki diris lagu dhacay waa inuu asii sameex barankiyada keenayeen horta barankiyada Soomaalida waa been macnaheedu waxay tahay waa isla ogyahay waa sax barankii la isla ogyahay Soomaali ma keenta hadalkaas diris lagu ku saxnaa midaan xalli warkiis uu soo qaatayna oo uu CK u soo horkacayna waa ku qaldaneed inaad gabar ku soo darto ma ahayn milyan maane bilyan sadii la haysto gabadha isfaham weysiin waa la kala tagay weligeeda la kala tagay weligeeda la isku kursanay okay farm uu soo qabto kadib maxaa sameysay fiidiyoga ka bixisay waa soo edit garaysay inta sameexa muraayada laga arkaya ku soo dhaxelisay kadibna Instagram-ka soo istaagtay dadweynaha farta ku soo tiray yaa ku mashquulay صح واي CK intan ku saxan yahay oo ah barankii dirisle isamiica kaamirada laga arkay isla markii uu jaray oo soo edit garay uu soo geliyay صح labadooda aniga waa meesha maxkamadii dadka u galgar qaadaysan CK meel ku soo fariistay waa may hadda aniga dhiiqooyinkayga ceebtida raadinaysa sanad ka hor gabar aan kala tagnay aad hadda ugu faraxsan tahay sidina ceeb tahay oo kale you don't know now laakiin adiga absolutely waa true in gabar ay soo gasho meesha waa qalad weligeeda la kala tagi jiray weligeeda la isqabi jiray absolutely in soo geliyo oo ku qaldana adiga hadda dhiiqooyin ku jirtaada maxaa kamid ah barankii qurux ku dhig la sameeyeen sameexa markay lahayd aniga weligay marideeda ma la taabanin faara lagu soo qabtay oo iska salsalaxanay CK buu soo mashquulay
CK adigana midaan waa ku qaldan tahay haddii taataabtay iyo haddii kalaba yani waxaan dhihi lahaa dee kolley Soomaaliya tiin waa saxanta waa qaldada idin dhihi maaye TikTok horta wuu damay ayaanta YouTube wuu damay TikTok waa loo wada guuray kolley dagaal gacana isoo qaadabaysiin darisaa tiin waa un afe dee YouTube-ka noo shido darisla adigana soo jawaab CK adigana u jawaab YouTube-kan xoogaa labadoo bira noo kala shidnaado hambaliyana waa leeyahay CK 1 milyan gold bottle-kan gadaal u yaalaa ana labadaba waa asxaabteyda waa ii sameeyeen kan saaxiib wallahi kan saaxiib laakiin dagaalkiin xoogaa YouTube u dhadhan u yeelaa hore u socda jooji idin dhihi maane gunaanudkii kolley Soomaaliya nahayo dagaal jooji dhihi mayno darisla adiga jooji CK adiga jooji dhihi mayno hal yaray bis dagaalkiinana xoogaa YouTube-kii ayaantan dhadhan la-aan buu nabadee marka maxaa la dagaalka la yareeyay xoogaa dhadhan u yeelo laakiin la isku fogaanin aniga ahaan sida ila tahay darisle wuxuu ka falcelinayay kilibyo yaryar oo YouTube oo TikTok la soo geliyay oo dadka ama qaar fani ama qaar dhib ama qaar dhaqan xun waxay yihiinba laakiin aniga ahaan waa la igala qurux badnaa ila ma wanaagsanin in arinta CK iyo xaaskiisa hore oo xalii ka hadlayay in uu reaction ka soo bixiyo ayuu isqilaafsan oo marxaladan dhex taagan inuu soo geliyo xataa ayuu heshiisa waa laga fiicnaa CK ama darisle ama qof walba oo YouTuber ama TikToker social media ku jiro waa laga falcelin karaa wuxuu keeno wuxuu soo geliyo qofkii la yaqaano wax walba soo duutid qof walba ka falcelin karaa xumaan iyo samaan haddii darisle uu ka falcelinay CK muqaaladiis inuu soo qaato ka falceliyo kaliis ayaa ila wanaagsaneed in xaaska uu kusoo daro bataatanba waa qalad ma ila wanaagsaneed okay CK asagan xaq buu leeyahay qof walba haddii wax lagaa soo sheegay inaad jawaabtid yes because CK caloosha kama jirana inaad jirto iyo inaad joogtana shaqadiisa ma halo tiisu wataa you don't know now aniga this guy waxa ii magaal ahayd in hal mar anfalo uu dhahay markii 1 milyan ee wax yar iga dhinay waa la soo wacay qoraal la soo qoray anfalo uu dhaalay ninkii odayga ahaa anfalo uu dhahay waa fiiri warun anfalo waa iska dhahay kadib ma ahayn ma aflayaadeen meel u soo fariisan meel looga hadlayo waxma dhihin anoo TikTok ciyaarayo waxa la weydiiyay asagii qurux ku dhigaya caan badan anfalo friends ay horto awal waa isdagaalsanay dagaalkeedii waa la heshiis way heshiiyeen video ugu dheer YouTube aan arkoon daawado hal saac wax la jiray soo wada duubeen way wada ciyaari jireen TikTok game way wada kaftami jireen laakiin meel un baa la iska qabtay kulli cidna cid anfalo bilaash uma dhehayso labada qof haday saaxiibo yihiin haday iskhilaafaan adoo buuqin adoo aytamin falooga dada iskala laabto anfalo isdhaa laakiin qof basti way dad ma kala laabtaan aniga hal qof YouTube saaxiibo ka ahayn oo aad isugu dhaweyn TikTok game wada ciyaareen waa wada taqaaniin magaciisa sheegi ma waa isqabanay waa iskhilaafaa dadku hadii la isfahmi waayo anfalo ma dhihin asagana ma dhihin TikTok ilaa hadda fariinsanay marka qofka choice-kiisu waay qofka wax ka aqoonsado anfalo iska kaaliye qofka hadii uu isfaham weysin blow iska ka saaraya marka wax hooso idinka dhaxeeyo isku qabateen oo flow iskala laabateen aniga moogi ilaahba og laakiin wax walba oo dhaca dagaalkan hadda bilowdo la soo fadhiistay meelaha la isaga dhig hadlo tirisle batatanba inaad ku soo darto gabar nin ay kala tageen waa ku qaldantay CK adigana ninkan hadda u jawaabaysid batatanba adigana waa ku qaldaneed inaad uga roonaatay ahayd in aad dhahdid branki waxa lagu soo qabtay far adoo sameexta taabanayo waa loo wada jeedo laakiin waa gabar labada waa gabdho mugta labada dhinac labadiin isjaf maadaama ogaa this guy 1 milyan oo hor dhacay anfalo weyn dhahay waxa kama sheegin waxa ay anigu ma dhakhtarka maskaxda ah maxaa ii weydiinay hore ku dhiigle Idris la aqal badan saas ku jiray ninkan hadduu soo qaatay gabar ninka su'aashii weydiinayay aniga hadduu isku kaaya daray uu yiri nimanka waaweyn ee bila aqliga midda kale wuxuu sameeyay fiidiyowga aniga jawaabta aan bixiyay oo ani maxaa ii weydiinay dirsidii qurux ku dhiigle aqal badan ma doctorka maskaxda ah aan ku jawaabay murti jawaabteedu uu ka daray wuxuu yiri muhiim ma jawaabta ma garanaysaa labadiina ama flowga iskala laabta ama halka milyan oo ka xumaaday
ama wax kaloo ka xumaad waxaad doontan isdhaho ama hal maalin isjafa ama maalin walba soo wada fadhiista rag waaweyn baa leeyahay youtube aa lagu wada jiraa adinka idin taalaa hebel aa saxan iyo hebel aa qaldan idin dhihi maa laakiin dirisle adigana inaad fiideoga manaal kusoo dabaqdo ilmo wanaagsaneen siikii adigana samiixa inaad kusoo dabaqdo ama soo gelisid ilmo wanaagsaneen laakiin sidiina kala maaragtay isjugdhawa iskaraacan sida hadda ii muuqata labada video shalaa lasoo wada geliyay laakiin markaan fiiriyey dirisla kusoo horreeyey oo soo qaatay videoga ck waa jawaab marka waxaan leenahay labadan kilib labada qaldan oo gabdhaha lagu soo kala daray waxaa ku horreeyey dirislana qaldan xaas waa la kala tagaa waa la lisguursadaa ck uguma horreynay mana ugu dambeyn doono adaa ku qaldan inaad soo qaadata ma ahayn xaliya waa nin waalan dee xaliya warkiisa in la soo qaataaba qalad ahayd saamayn baa jirta wax la dhaho influence okay inaad isla fadhaan rajeynaya okay so haddaadan waxba macnaa lahayn kor iyo hoos 1 milyan baad haysan kartaa stillna naagti way kuu gambinaysaa why imagine adiga hadday garoob kuu gambiso noloshaada say dareemi lahayd say noqon lahayd xaaladaada garoobba kugu raacsana xabadaas uu leedahay 1 milyan garooba u gambisa garoob ma ceeb baa garoob haddii la guursado ma ceeb baa hooyooyinkeena qaarkood garoob lagu soo guursaday aabayaasheena garoob soo wada guursaday annaga soo wada guursan adinkaa soo wada guursateen gabar la isguursado ama gabar ha ahaato ama garoob ha ahaato bataatanba ceeb ma ah haddii la kala tagana ceeb ma ahna waqtigiyaa dhammaaday laakiin dirisle aad iyo aad ayaa looga wanaagsanaa waadna ku qaldaneed siday aniga ila tahay waxaan fikradeyda ka dhiibtaa mugti aniga hebel waa qaldanta haddaan dhaho macnaheeda waa inaan necba labadiina idinma necbin laakiin labada muuqaal wixii idinka horreeyey wixii idin qarsan waxaa farowga iskala laabateen waxaa isku dhaga hadasheen I don't know waxaan ka ogahay ma jirto itus oo itaabsiya la isha iyo macallin labada muuqaal markaan qiimeeyey dirisle ayaa qaldan nin waalan oo gabdhaha caaya oo dumarka aflagaadeeyo oo waxyaan la siinin xaliima kuusey daanyeer ha u naqanin qababac dhahay ayaa warkiisa soo qaadato waa saxayaati taas macnaheedu waxay tahay 1 milyan gaartay xaaska maxaa u haysan weysay garooba kuu gemisay waa ku taageersanahay waay ilaan qosolkaba hiiloo galaa mugti okay sikay adigana gabdhaha in gabdhaha halida adiga iskarbaasha intaan ugu baxayaa kolley ku joojin maysiine yaree xaqiiqatan laba qof oo waxaa tihiin saameyn kule bulshada youtube-ka xaggiis tiktok-giina hadda hawadooba ka baxooyaaba waa la xira lahay bisha 8 run iyo been waxay tahay ma lahan qabiil iyo qabyaalad iyo qurun iyo qabac iyo game iyo ay ayuu noqday youtube-kia loo soo laabanaya lama huraan waa coos jilaan daalkiina isku tuurto isku dhigay hadda wax isku duudub xoogaa dhadhana u yeelaysiin aniga ma diidan dhadhana u yeelaysiin youtube-ki dhag uno kana dabkiishadana dab lagu daartaa liiri maanta kana duusood kana soo waa ku dhex tuuranayna waa ku dhex dabkiishadana dab lagu daartaa mugti waa ku dhex hadayna laakiin yaa lagu darin gabdhaha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu boqolkiiba boqolna dirisle aad baad ugu qaldaneed inaad soo qaadatid kilibkaas oo ninkaas waalan xaliyan dad waalan u aqaanaa oo sidaas uga hadlay marka يعني عمرنا وحقولنا كان بنكيسا يعني انتوا إيه مرمرة هذا ما نوع كل شيء أما وحرار هذه أما بود هذا النرجع وجوسنا وين كنتي كلام تاسو عيب ما قرب إلا جوسنا عيب ما يعني كل شيء زيرو عطا وعبكم من الجيراني emotional كايا قرصو ما أنت وقت الجونا there is no way جواب إيو أنتوا كدعي صاروا كيالي حاول ضبط سريكا قصارنا أنا مجرو وضبطت جايز okay video dam uma soo duwaa yiri waa wanaagsantaa in meesha lagu joojiyo laakiin anaga ahaan waxaan rabi lahayn inaad isku dhicin la isdagaalin sidaa shalay u heshiisaan ahaydeen sidaa shalay isku garab istaagteen dad badan role model u tihiin oo youtuber oo idin daawado ninkaasna ku xiran kanna ku xiran dee nabadii iyo dagaalkii nabadii iyo farxadii iyo dadka caawinaysay masaakiin wax loo aruurinay hawl wanaagsan haysin in la idinku daydeed mugda hadda inaad cuntaan oo isku soo laabataan horta aad baa looga xumaa aad baan ma fiicneen ila aniga ahaan ila ma wanaagsaneen
tan kale CK adiga xataa waxaa laga yaabaa mar Soomaalidoo dhan ay kugu kacsan yihiin youtuberadoo dhan ay ku haystaan ayuu garabkaaga soo istaagay dirisle oo ku yiri anaa garabkaaga aan waa heshiinayna saaxiib maadaama hore isu haynay dadkaana aan iska dhicino maalin garabkaaga soo istaagay inaa xasuusnaato xoogaa ha dib ugu degtay aniga aan fikradeydu ah laakiin labada muuqaal markaan dirisle ayaa qaldan oo wax dambe oo imaadan oo ka falcelin doona والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت سوق كرب استاجي CK ودرس له وضد كل أيكوك عسنا هاي وقويس كأو بربري إن حوجا قدر السيد هذا يقول باي باي انتهوا باي نوض دجالك تشوجيننا